السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي سومالي محمد ملكستو الدونك كجوكتين وولاشين أبح برسماء يمركلا إيطالي ثلاثة سيدان هرب إذن كوكو شيء جمعنا دويت إن يرو حوغا إسكت راحيسي أيادين سوكلية أو أها إن وحيابها عن كلا كل ماي إن ياب عن كلا كل ماي ما يدري مقدشو لكن وحيد كبلن قاعدة إن إذن سوكلين دونو إن وحوناكسن أون كلا كل ماي in laba partanka kala dhigi doona this waxa weeyaan part 1 laakiin before aan u guda gelin fadlan subscribe to my channel like and share tambaleelkana taabo si aad ula socotid oo ku dhaafin barnaamijyada ama waxyaabaha ama macluumaadka aan idin la soo wadaagi doono aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sidaad mar walba ii taageertaan oo waxyaabahan idin soo dhigo aad ula socotaan waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah inaad isiseen oo igu dhageysanaysiin all right marka waxa wanaagyada kala duwan oo la soo koobi karin haddaan qayb idinkaga taataabto horta waxaan tagay aniga wadankan aan ka tagay 91 or the end of 90 somewhere along that qaxi markuu dhacay dib uguma soo noqon ilaa iyo hadda soo ku dhawaad 30 sano ayaan ka maqnaa fikradda aan ka aaminsanahay intaanan halkan iman iyo fikradda aan hadda ka aaminsanahay labay kala tahay markii hore waxaan ka aaminsanayn oo dad badan oo anigoo kalena ay jiraan nabadda iyo carqalad ka jirto intaasna day waan maqalnaa oo aniga hadda habeenkii ugu horeeyoon imid waxaan la soo koobsaday intaan wadanka magaalada seexanin qaraxii lagu dilay wiilashii dhalinyarada ahaa alla yarxam ilaahay ha naxariisto jannadii firdaws allah ka waraabiyo marka horta nabadda ilaahay ha noo sugo oo carqaladda wadanka ilaahay nabad ha ka dhigo Soomaali allah is jeclaysiiyo marka wanaagyada aan la kulmay wuxuu yahay marka ugu horeysa businesska markii la dhaho Soomaaliya business inay caadi ahayn baa ka socoto ma sha Allah dadka aad diilada ku jirta farxadda wanaaga sida loo farxsan yahay sida howlaha kala socdaan wax oo horta la soo maaragtay xataa la qiyaas kar ma aha anaga meelaha aan joogno wadamada la leeyahay hore mareen ayaga naga haysta systemkooda lacag kaasha gacanta wax ku sida ma arkaysid annaga credit card la isticmaalaa cheega wala la isticmaalaa kaasha wala la isticmaalaa halkan telefonka la isugu soo ridaya dhag meel walba xataa qofka oo tuugsanaya oo jidka taagan ku oranaya walaalo wax isii waxa oranaysa number ma haysataa ha numberka ugu tuuraysa nacam they are so advanced internetka it's better than the internet aan haysano wadankeena so marka business markii la dhaho ma sha Allah horta xamar iyo muqdisho qof oo ceebka sheegi karo ama dhihi karo nolosha waa nolol ma taalo horta qofkaas been uu sheegay sharaf iyo maamuus iyo wanaag iyo business iyo adduun iyo horumar iyo progressing ka socdo bildimada iyo dhismaha iyo maaragtay markii la dhaho real estate-ka waxa ka socdo ma umaleyn kartiin bildimada sida ay u samaysan yihiin waa sida Mareykanka anaga guryaha aan deganay u samaysan yihiin waliba ayaga naga horeeyo mutneelaha iyo marmarka iyo guryaha quruxda bidimada sida u dhisan yihiin dabaqyada wallahi wax la soo koobi kar ma ah waa naga horeeyaan they are more advanced maxaa ku soo haray hoteelada maaragtay businessyada hadda dhismaaya real estate ka soo socdo inaba caadi ma aha ma sha Allah muqdisho is booming ma sha Allah it's beautiful sida u socdo maxaa ku soo haray dhinaca waxbarashada dadkii waxay fahmeen gabdhihii iyo wiilashiiba jaamacadihii iyo iskuuladii waa la buuxaa iskuulada xataa private-ka ah waxaan soo arkay oo soo wareystay oo la soo sheekaystay sida hadda Samsung Foundation oo kale ilmaha in qaar badan oo kamid ah xataa kuwa oo iskuulada oo private-ka dhigta oo iska bixin karin in scholarship ama sponsoring ay jirto system ah oo ilmaha laga bixiyo qayb ama badankeed laga bixiyo ama qaar laga bixiyo kulli sida u dhan tahay dadkii waxay fahmeen in gabar iyo wiil waxbarashada inay muhiim tahay jaamacadihii waxa jooga haday tahay jaamacadii dawladda oo jaamacadda ummadoo kale oo aan aniga aan presentation ka bixinayay iyo haday tahay jaamacad private ah oo sida Samsung University oo private ah waa inoo soo share gareyn doonaa Samsung University ajalad aan ka soo duubnay is so advanced literally Washington State University qaabka ay u samaysan tahay
wax yar un baa la moodaa inay ka horeyso oo la leeyahay adduunka koowaad weeyaan halkanna waxa weeyaan dunida saddexaad la leeyahay jaamacadaheeda kaala arag maasha allah beautiful ardayda waa arday they are so eager inay wax bartaan ay ka go-an tahay caqliga iyo maskaxda iyo xushmadda iyo siday habka iyo dhaqankooda iyo siday u aruursan yihiin iyo sida isugu dacsan yihiin iyo sida maaragtay sida ay iyaga maaragtay isku xushmeynayaan iyo the way they carry themselves ardayda waa arday innaba wallaahi waxay igeliyeen yidadiilo marka waxaan aniga u kordhiyey oo presentationkaas siiyey ama speechkaas siinayay ama maaragtay dhiirigelinta ayaga dhiirigelinayay anigana waxa way ayaga ay dhiirigeliyey markaan arkay siday u dhaqmayaan iyo siday yihiin iyo xushmadooda iyo aniga ayaga ay dhiirigeliyeen anigana iyagana dhiirigeliyey marka waan kala faa'iidnay aniga keliya waxma kusoo kordhinin oo waxma u faa'iideynaynin jaamacadda samsam oo private ah ardaydan kala kulmay masawiradeena facebook aan idinkula soo wadaagay waan isku dayayaa video oo masawiro ahna inaan idiin soo dhigo jaamacadda markaan joogay oo aan ka duubayna sida private school oo private system oo university si aa u aragtiin iyadana waan idiin soo dhigi doonaa iyadoo video ah insha allah youtube-ka idiin soo dhigi doonaa jaamacadda ummadda oo ilmaha ay ku dhigtaan inta badan free kulligeed ku dhigtaan oo dhacam waaba dee waa tuition ma aha waa only registration ayay bixiyaan ardaydu dee waa jaamacad dowladeedu lacag ma bixiyaan iyadana maasha allah iyadana presentation aan ka sameeyey ilmaha soo dhalinyarada soo dhiirigelinayay sidoo kale ilmaha ama jaamacad oo public ha joogaan ama private ha joogaan waa caruur isku dubadhacsan dhalinyaradu waa dhalinyaro xushmad qiime qaayo waxbarashada inay faa'iido leedahay la fahmay ka go-an tahay waxay u hayaan maaragtay waxay u qabaan hamuun waa gaajo hamuun ayay waxay u qabaan inay wax bartaan marka annagoo kale dadka ah howl baa noo taalo dad yooga wadamada kale jooga oo ay tahay inay dib waddanka ugu soo celiyaan wax nuxur leh tayo leh qiimo leh dadkooda u faa'iideeyaan howl ayaa noo taala sidii aan gacan ku siin lahayn dhalinyaradaas iyo ubadkaas wax baranaya jaamacadaha jooga sidaan gacan ku siin lahayn oo uga caawin lahayn waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ayan u haysan access waa howl annaga noo taalo haddaan Soomaali nahay waa inaan noqono kuwa iyaga wadamadaas jira ee wax bartay sidaan ugu soo celin lahayn oon u caawin lahayn ardayda waddankeena jooga ardayda waddankeena caruurta oo caruurteena oo kale dee ah waa caruurtayadii caruurta Soomaaliya annaga dadkeenaan wadamada kale jooga waa inaan waddankeena dib ugu soo celino waxa annaga aan faa'iidnay aan baranay maxaa ku soo haray waxaan tegay high school dugsi saraan tegay waxaan tegay dugsi dhexe waxaan tegay elementary school dugsiga hoose waxaan kaloo tegay technical or vocational school oo dadka lagu barayo entrepreneurship hadhowna entrepreneurshipka markay baraan ayay waxay siinayaan loan small loan uu qofkii business ku bilaabo qofkii already business haystana businesskiisa siduu ku sustain gareyn lahaa oo ku haysan lahaa oo ku maareysan lahaa oo uu kula socon lahaa oo u horumarin lahaa ayaa la barayaa dadkaas oo dhanna ma aha dad ayaga lacag ka bixiya waa dad oo ay maaragtay loogu deeqay oo ay dad ka soo shaqeeyeen in ay dadkaas caawiyaan Samsam Foundation ayaa ka soo shaqeysa si ay dadkaas ku caawiyaan iyaga ayaa marka dad intay donationo iyo wax ka soo qaadaan oo ay isugu soo dabradaan ayay dadkii ugu deeqaan oo u provide gareeyaan system ah vocational school oo wax lagu baro ama maaragtay qofka sidoo business ku bilaabi lahaa ama business haduu leeyahay sidoo businesskiisa uu maaragtay u sii wadi lahaa oo u sii horumarin lahaa hadduusan business haysanina markii la baro business sida loo sameeyo oo qofkii uu dukaan yar oo kale hadduu furanayo siduu lacagta u baran lahaa sidii wax loo qoro sida xisaabtii loo ogaado sidii wax loola socdo wax meeshay ka galeen waxa ka soo baxaya faa'iidada iyo khasaarada sidii hadduu qofka uu lacag haysan uu ku bilaabana waxaa la siinayaa lacag oo loan yar ah oo dadka qaarna ay qayb soo celinayaan qaarna la iska siinayo waxay ku kala xiran tahay based on qofkaas waxa uu awoodi karo dadka qaarna 30% ay soo celinayaan qaarna waxay soo celinayaan 70% sida qofka hadduu wax haysto iyo wuxuu haysto ay ku xiran tahay marka howl oo wallahi la qiyaasi karna ka socoto high school kana sawiradooda facebook-ayga aan ku share gareeyay ubax araweelo warsame aadan haddaa gelisiin waa helaysiin sawiradii dhan aan kusoo wadaagay aan kusoo share gareeyay ama my Instagram oo ah ubax warsame ubax haldaa halkaas kala soconaysiin oo ka arki kartiin ama my linkin oo ah ubax aadan ayaa eegi kartiin halkaas kala socon kartiin marka
high schoolka ilmaha high schoolka ya secondary schoolka oo aan tagay oo aan ayagana maaragtay soo encourage gareynayay haddaad aragtiin wallaahi waxay igeliyeen shucuur ah inaan ka taga xataa meesha ma rabin inaan iskuulka kasoo dhex baxo ma rabin waxaan rabin inaan inta iska dhex galo ayaga maanta ayaga la joogo shucuurtaasay igeliyeen waayo waa caruur isku dubaridan xushmada iyo sharafta iyo qiimaha ay u hayaan qofka wax u kordhinaya wallaahi dis waxay iga dhigtay inaan waddanka rabo inaan kusoo noqdo in badan kusoo noqnoqdo oo ilmihii wax u faa'iideeyo waxaan kula talinayaa qof alla qofka cajaladan daawada oo aniga yaqaano waddanka aan ka imid iyo wadamada kala jooga qof wax soo bartay oo Soomaaliyeed hadaa tahay waana loo wada baahan yahay waxaan kula talinayaa inaan inta u timaadin wax u faa'iideysiin qof walba waxaan kula talinayaa inuu hal mar waqti intuu soo qaato tigid soo goosto waddankana soo arko dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuuladana annagay naga rabaan inaan dhiirigelin aad ku soo kordhisid dhiirigelintu ma aha suud dheer inta la soo qaato oo labis dheer la soo qaato makeup iska soo bixiyo gabdhahana in oo saas inta loo socdo la dhaho America iyo Canada ka imaaday aniga ya oo dadkii waa ka duwanahay no waa inaad tustid in adiga iyo ayaga idin waxba ku kala duwaneen dad adiga inaad tahay qayb ayaga kamid ah you are part of them ma tihid qof oo meel kale intuu ka imaaday adduunyo kale ka imaaday oo dad waxba u gelin u imaanayo wallahi ardayda markaan la sheekaysto waxay ugu dhaheen waxaan u imaan jiray dad Ingiriis ku hadla markay xataa lecture iyo presentation sameynayaan Ingiriis ay ku hadlayaan maxaa Ingiriis ugu la hadlaysaa ilmo waxa u timid Soomaaliyeed oo Soomaali ah inaad af Ingiriis ilmihii Soomaalida kula daldalantid walaalayaal horta taas aan ka waantoono Soomaaliya marka imaatid oo aad rabtid ubadka inaad wax u kordhisid adiga isa soo sax afkaaga Soomaaliga ah horta bal si fiican u soo toosi ilmihii af Ingiriis kula daldalmin yes iyaga Ingiriiska baranayaan laakiin afkii aan xoojino wallahi afkeena wuu tirtirmaaya haddii saas lagu sido ilmaha aan afkeena ugu sheegno waxa u sheegeen aan jeclaysiino Soomaalinimada iyo Soomaaliya wuxuu yahay waddanka annagoo imaanayna in annaga af Ingiriis ku daldalano dhibaatada anaga naga socotaa horta dadka qurbo joogta ah istoosin annaga afkeena aan ka soo shaqeyno maxaa ku soo haray qurbo joogta intay imaato jaakad dheer iyo suud dheer iyo gabadhana dhar oo la garanaynin iyo 25 layer oo makeup ah taasna aan iska dayno marka u imaatiin dadka inaa wax u kordhisiin waxa ka bilowdin horta ina ayaga oo kale ta adiga tahay dhulka la fariisan kartid hoosta iska gali kartiin markay ku dhaan mas'uul asla qaadayna gacanta garabka ku soo qabsatid ilmaha aad iska dhigtid inaadan qof kale ta ahayn qofkoodii aad tahay wallahi hadalka ii sheegay igu celiyana ahayd waxay dhan dadka markay noo yimaadaan Ingiriisiga ku hadlaan saasayna ayaga dhan iska dhigaan is saxno aniga cunugan dhala amal waay kan high school ka dhigto kan jaamacada dhigto waa kan dhalo kale hoostan soo gashan asana soo qabsana markay dhahaan isla ka sawir waxaan dhahayaa soo dhawow garabka isoo qabso waa caruurteeni waddankan ka maqneen meel kale aan ka imaanay nama ay siinin inaan qualify u noqono inaan ayaga iska fogeyno aqlina ma aha cilmina ma aha horumarna ma aha caruurteena aan soo dhaweysano marka u nimaadnana fooqayaan fuuline dhulka ayaga ay ku taagan yihiin iyo meeshay fadhiyaan aan la fariisano saas aan idin kula dardaarmaya waa mahadsantihiin Muqdisho waxa taala qurux iyo nimco iyo barwaaqo iyo waxaan haysan gabdhaha dukaamada dharka lagu gado dareeska maanta dalbanay waxa leedahay marada soo qaadanay waxa leedahay maradana rabaa in cambuur saas isaas la iga talo isla berita oo imaanay asagoo tolan xagee ka helnaa meesha anaga joogno dirica dhiibaysa waxa laga haysanayaa dhowr bari cambuurna meel aan ku tolano ma helnaba halkaaneeto nooc walba dareesa lagu tolaa one day waana raqiis dadkana meelahaas ka imaanay raqiis u yahay qofka halkan joogo shaqada haysan qaali u yahay marka dadka xagga ka imaanayo ogaada nimcooyinka inta ka heli kartiin qurbo joogay nimcada inta ka heli karno kama heli karno waddankeena wallahi cunnada iyo dhadhankeedana iskuma badhawa marka imaada ku soo kordhiya waxa aad soo faa'iideen ku soo celiyo waddanka dadka uga faa'iideeya u volunteer gareeya haddaad bugaag ama lacag haddaad hay-ad haysatid oo aad dadkii iskuulada intaa la soo xiriirtid aad wax ugu soo dhowneed gareyn kartid maasha allah caruur agoon iyo rajooyin ah ayaa ku jira iskuulada oo la caawiyo caruurtaaseeto qofkii sponsori karo oo maalintii xataa hal mar markay graduate gareynayaan xataa hadii usoo diri karo iskuulada haddaa isku soo xiranno
oo dadkeena dhan ay iskuullada la xirtaan way ogaanayaan ilmaha oo baahida khaaska ah oo goonida ah ee hayso oo annaga aan wax yar tari karno $30 $25 haddaan ku tarno cunugaas waxbay u faa'iideynaysaa marka walaalayaalo wax badan aan isu faa'iideyn karnaa waan kala faa'iideysan karnaa waddanka intaan kusoo noqono ayaan wax u faa'iideyn karnaa dadkeenna annaga noo baahan yihiin dalkeenna annagu noo baahan yahay annaga waxaan nahaa iyagana waxay yihiin annaga nabadda ilaahay ha noo sugo qaraxyada iyo wax dhacayana waxa weeyaan qadar allah naftaada maalina loo qorin ma go'ayso waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo maanta ubax maanta teedii baa gashay oo allah u naxariisto waxaan rajaynayaa in la igu soo xasuusan doono oo la igu xasuusto inaan anoo jecel dadkayga u imid inaan wax ku soo celiyo ayaga aan wax u faa'iideeyo anoonan cidna ay soo dirin oo cidna ay soo beegareynin inaan ayaga u imid saasaan rajaynayaa waanan idinkula talinayaa maanta marka adduunkaan ka tagnaan waxaana la weydiinayaa maxaad dadkiinni kusoo kordhiseen maxaad naftaada ku kordhisay ilaahayga ma caabuday marka inta ilaahay caabudno ilaahay ka baqno ummadda ammaan siino haddaan wax tari karno wax ku kordhino khayr ah haddaanan wax tari karin sharteena aan ka haysano waan idin salaamayaa waa walaashin ubax warsame fadlan share gareeya videogan waa part 1 waxyaabaha kale oo aan la kulmana waa idinla soo wadaagayaa insha allah waxyaabaha faniga ah waa idinla soo wadaagayaa this was wuxuu ahaa very serious wuxuu ahaa hadal oo maaragtay aad maaragtay u ah aniga meel taabanaysa markaan ka hadlaayo caruurta iyo dhalinyarada iyo waxaan soo arkay wallahi qalbigayga maaragtay meel kale uu joogo marka moraalkayga markaan ilmaha ka hadlaayo iyo dhalinyarada aan soo arkay iyo markaan meelaha aan kusoo booqday iskuullada aan tegay oo aan presentationka ama maaragtay dhiirigelinta hadalka ah siinayay oon la hadlaayay wallaahi siday u dhagaysanayaan aniga ayay qalbiga ii dhiseen intaan aniga isdhahay ayaga qalbiga u dhis anay qalbiga ii dhiseen marka fadlan dareenka aan dareemay waa mid aan rabo kulligiin inaan idinla wadaago ood kulligiin saas dareentiin marka qof kastoo idinka mid ah oo Soomaaliya la hadlaaya fadlan haddaad wadamadaas joogtid Yurub ama America ama Australia ama adduunka meel kasta ka joogtid ood wax baratay ood ogtahay wax un inaad u faa'iideyn kartid dareenka aan dareemay oo wanaagsan aan rabaa inaan idinla wadaago wallahi waxaad dareemaysaa adduunyada qof ka fiican inuu jirin nimco kasta oo la helo tan ugu badan oo la helana waa midda oo qof arday ah oo aad dhiirigeliso ood qalbigooda wajigooda ka daawatid sida ay ku dhagaysanayaan oo ay u dhuuxayaan waxa u sheegaysid iyo jaceylka ay u qabaan inay wax kordhistaan markaad aragtid ayaa wallahi waxa ku qabanaysa mar walba inta u soo noqotid haddana wax u faa'iideey marka walaalayaalo imaada waxa barateen kaalaya ardayda u faa'iideeya la hadla iskuullada dhiirigelin u baahan yihiin inta iskuul aan tagay ama ardaydan la hadlay waxa ugu fudud oo aan ahay hadday wax kale iga faa'iidaan waxay ahayd in ay wadooyinkooda guryahooda iyo nadiifsadaan oo qashinka qof walba qashinka dhalada uu biyaha ka cabay waxaan kula taliyay kulligood dhalada biyaha aad ka cabtiin ama waxa oo cuntiin mooska qolofta mooska banaanka ha ku tuurinina qof walba oo qashinkaaga haysto ilaa aad meesha qashinka lagu rido geysatid intaas kaliya haddaan ku celcelino wadooyinka qashinka waa laga nadiifin lahaa ardayda haddaan barno in qashinka banaanka lagu tuurayo wadankooda ay ka ilaashadaan ogow in wadanka jaceylkiisa uu galaayo annagaana laga rabaa marka inaan ku caawino maadaama aan aragnay wadamada kale aan joogno in aan qashinkii meel lagu tuuri karin oo dadkaas wadamadoodii ay nadiifsadeen annagana wadankeena annagaa nadiifsanayna ardaydana waa meesha aan kow ka bilowno dhalinyarada elementary aan ka bilaabaynaa ilaa iyo jaamacadda haddaa qof kastoo naga mida intaan is aruursano qof walba oo same message aan sameyno ku celcelino oo la dhaho wadankiina nadiifsada war wadankeena aan nadiifsano war haddaan Soomaali nahay wadankeena aan nadiifsano wadankeena annaga iskale qof kale noo imaanayo male haddaan ku celcelino ardaydii ay ka dhaadhacdo cunug walba guru ka soo kacay fariintaas intuu qaado oo hooyadii iyo walaalihii iyo dariskiisa u sheegaya kulli markii fariintii la wada qaato waxa way anagoo dhan wadankeena nadiifsanayna wadankeena noo nadiifsamayo wadadii qashinkiya laga ilaalina ilmihii waxay fahmayaan in qashinka qofka tuuray xataa ayaga iska qabtaan marka xataa fariintaas kaliya haddaan hirgelino wallahi guulan gaara aniga waxaan taaganahay hadday taa kaliya iga hadho oo
oo campaign-kan aan hadda bilaabay oo ah qashinkeena aan annaga gacanteena ku haysano ilaa meel qashinka lagu rido aan tagno oo qashinka ka aruursano ka ilaalino inaan banaanka annaga ku turno adi haddaa kan banaanka joogo aruurin karin adiga ka haysatid ha ku darin ee ka hayso oo adiga qashinka la raadi kaaga bes qof walba qashinkiisa hadduu asaga ka ilaaliyo inuu jidka ku tuuro kulligeen waddankeena waa hagaajisanaynaa haddaan marka wax kale laga faa'iidin waxaan rajaynayaa in qashinka qof walba uu asaga samaynayo uu asaga ka ilaaliyo inuu jidka ku tuuro si waddanku noogu hagaago oo aan qashinka uga ilaashano mas-uuliyadna wada saaran waaye ilaahay dartiis isku caawiya oo fariintaasayto ku wadaaga la wadaaga dadka kaloo dhan fariinta aan idiin soo diray waxay tahay caruurta dugsiyada hoose dugsiyada dhexe high schoolka jaamacadda meel kastoon tagay oon ka hadlay oon la hadlay markaan dhammeeyo waxaan ugu soo talagalay waxaan ku xiraayay qashinka adiga isticmaashay waxa aad isticmaashay qashinkiisa ha ku tuurin waddada banaanka ha ku tuurin adiga qashinkaaga meel qashinka lagu rido geyso kulli hadday saa sameeyaan faa'iido weynaan gaarnay at least intaas malaha laygala harayaa khayr idin rajaynaa waxaa kaloo ku waaniyay ilmaha oo kula taliyey in ay aaminaan annaga dadka waddamadaas jooga inaanan ayaga ka fiicnayn iyagaa naga fiican naga adkaysi badan naga dulqaad badan waayo xaaladaha ay ku nool yihiin wax ku baranayaan waa xaalado adag waxbarashadana way nooga fiican yihiin dulqaadkay nooga fiican yihiin afkoodii yaqaanaan way caqli miiran weeye waxaysan haysan resource way naga caqli badan yihiin baan dhahaa aniga marka waxaan ku yiri ilmaha waaba naga caqli badan tihiin waxaad idinka sameyn kartiin anagu maba sameyn karnee waxa waaye ilmaheena waa ilmo oo wax walba intay heleen iska jilicsan bayba noqdeen aad adayga haysatiin ma haystaan waa inaan inta keeno oo idinka aad adayga idinka bartaan marka idinka ilmaheena wax badan u faa'iideynaya idinkan waxaad moodiin in meelaha anaga joogno ee iyaga idinka fiican yihiin idinka ma fiicnaan idinka ka adag idinka waxbarashadeena ay ka badan tahay idinka banaanka maanta dhan haddaa orodiin aniga dhidida iga da'ay maanta dhan markaan banaanka marayo iyaga maba dhididayaanba way la qabsadeen marka caruurta niyadda ha loo dhiso moraalka ha loo dhiso khayr aan idinku ogahay waa ku dheeraaday fiideogan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi